maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan ku dhex jirnaa trainingkeena xalqadeena afraad fasalka form 3 waxaan ku qaadan doonaa ama isla eegeena chapterka afraad oo ah introduction to thermodynamics introduction kiisa basics oo kale inaan xoogaa ka hadalno thermo kelmadan sida idin muuqato thermo waa heat dynamicna waa motion heat kana waa heat ama energy kana motion heat motion saasa loola jeedaa marka thermodynamic aan isla fiirin doonaa 10 inta uu ka kooban yahay chapterkan ilaa iyo 4 uu ka kooban yahay thermodynamic oo 4 uu ka kooban yahay oo kala basic concepts of thermodynamic iyo endothermic exothermic reactions heat of reaction spontaneous and non-spontaneous reaction kadibna chapter review question uu ku soo gabagabeynaa marka chapterkan wuxuu ka kooban yahay 4 uu ka kooban yahay iyo chapter review question chapterkan markuu dhamaado kadib waxa laga rabaa macalinka inuu xaqiijiyo ahdaaftan oo ah inuu basic concepts of thermodynamic oo ah environment-ga inuu macnaha waxa la yiraahdo environment surrounding universe boundary intaba inuu yaqaan sidoo kale systemka iyo types of system intaba inuu markaas maxaan ku yiraahdaa system surrounding boundary intaba inuu yaqaan ardayga inuu intaas qeexi karo sidoo kale energy changeska chemical reaction ka dhacaya inuu sheegi karo macna reaction in heat la soo saaro in heat la qaato sidoo kale inuu heat marka la soo saaraan reactionada heat ka soo saarayo kale in uu dhihi karo exothermic iyo endothermic waxa ay yihiin inuu kala sooci karo reactionada qaar kood heat ay soo saaraan qaarna soo saaraan oo heat ka soo saaro kala sidee marka sidoo kale heat of the reaction farqiga u dhaxeeya spontaneous iyo non spontaneous inuu sheegi karo muhiim ah marka waxyaalaha la rabo inuu xaqiijiyo ka spontaneous iyo non spontaneous redox reaction iyo non redox reaction iyo sidoo kale energy changes ka dhacaya in chemical reaction gudihiisa inuu yaqaano iyo basic conceptska inuu ardayga intaas in laga dhiso okay tusaale ahaan 10ka koobaad oo kale ee chapterkaas haddii aan soo qaadano sidaan hore u sheegnay qaababka 10ka u dhisan yihiin 10ka marka la sheego waxa ku xiga objectiveskiisa la sheegaa mesela hada basic concepts of thermodynamic 10kan objectiveska la rabo waxay tahay basic concepts of thermodynamic inuu description ku sameeyo basic concept of thermodynamic waxa ugu horeeyo in horta thermodynamic inuu qeexi karo ardayga inuu thermodynamic waxa ay tahay inuu qeexi karo labo inuu system sheegi karo systemka noocyadiisa inuu sheegi karo surrounding waxa la yiraahdo inuu sheegi karo boundary in noocyadeeda inuu sheegi karo waxyaalaha ugu muhiimsan taas waa marka ardayga inuu marka laga bilaabayo maxaan ku yiraahdaa thermodynamics intaas inuu yaqaan basicska marka intaas okay marka 10kan marka waxyaalaha la isticmaali karo hada 10kan oo hada aan soo tusaale ahaan soo qaadan oo kale qaabka marka la bixinayo waxa la isticmaali kartaa methodology-ga aad isticmaali karto waxa kamid ah experimentation la isticmaali karaa in experiment lagu soo bandhigo in thermodynamic waa heat fellow horta heat ka ma socdaa ama energy fellow energy-ga ma dhaqaaqa heat-ka inuu soconayo in kale horta inuu in markaas experiment lagu tuso arday
discussion in su'aalo la weydiiyo sida hadda aan weydiinay oo kale thermodynamic aan dhahnay intaanan qeexin thermodynamic macnaheeda ama area literally meaning markii la yiraahdo thermo oo heat ah iyo dynamic oo motion ah haddaba marka horta heat kama dhaqaaqa ma socdaa okay experiment ahaan ku soo bandhig inuu soconayo say ku ogaanay heat waxa lagu ogaan karaa waxyaalo badan la sameyn karaa jirto oo aad u sameyn karto laakiin aan fiirino buug waxa uu soo qaadanayo adigu waa bedeli kartaa haddii masalan buugga uu isticmaalo kale experiment adag hadduu isticmaalo iska bedel experiment sahlan oo aad ardaygaaga kula fahmi karo waa ku bedelan kartaa okay tan oo kale مثلا experiment observation of heat fellow maadaama uu thermodynamic uu heat socodka heatka uu dhahayo horta heatka ma socdaa experiment ahaan ardayga in loo cadeeyo heatka inuu soconayo heatka ma socdaa oo fellow ma sameeyaa aan aragna marka inuu sameeyaa waxaad u baahan tahay inaad tusto experimentigaas sameyso waxaad u baahan tahay materialska u baahan tahay waa kan gabal bir ah intaas u baahanay waa kugu filan tahay gabalkaas bir ah iyo oven leh haddii ay heshiin haddii oven masalan aan la soo qaadi karin oo kale masalan kuwan oo kale way badan tahay thermada haddii la isticmaalayo laakiin haddaad doontid gobol bir ah iyo waxaa kugu filan iyo dabka kugu filan soo ma ovenkaas ama portable stove inaad shidid kadibna aad kuleysid birta ma sii hayn kartaa heatkii maxaa ku dhacay follow it from the wuxuu soo raacaa maxaan ku yiraahdaa birti wax yar kadib way kullaanay intee ka imaatay dabkii aad saartay ee ka imaatay heatkii from dab to gacantaa soo ma dabku ka yimid gacantaadu na yimid taas waa way dhacdaa waxaa kaloo marka aad ku samayn kartaa maalan sokor ama bakeeriga shaaha oo kale haddii aad soo shubto aad dhexgelisid biyo caadi ah dhexgeli bakeerigii kullaa biyihii haddaad gacantaada geliso waad dareemaysaa kuleyl ama bakeerigii naftirkiisa gacanta markaa geliso laakiin gacanta waxaa ka fiican in bakeerigii si safety inaad ardayga u tusto hadda maalan bakeerigii gacanta geli haddaad dhahdo kuleylaa dareentay intee ka imaatay hawaagaa marka bakeerigii in usgubaa laga yaabaa oo uu ku gubto waxaa ka fiican laakiin koob shaah soo qaado dhexgeli biyo aan badnayn dhexgeli biyaha uu is yara bedelaa xoogaa uu kullaanaa saasaa dareemaya gacanta haddii biyaha la geliyo biyihii is bedelay intee kuleylka kaga imaaday shaaha kaga yimid bakeerigan shaaha kuleylka marka heatkii follow from bakeerigii shaaha ahaa to biyaha kadibna gacantaad markaa geliso waa dareemay biyihii is yara bedelay oo qandac noqday ama kuleyl noqday aa arkay marka heatka inuu dhaqaaqaayo taasaa daliilku ugu filan aad leedahay qaab noocaas oo kale inuu bixiso laakiin casharka haddii uu noqdo oo keliya thermodynamic waxaa la yidhaahdaa waa branchid physical chemistry ka mid ah oo lagu barto fellow wax haddii aad saas dhahdo waxay noqonaysaa oo keliya waxaad iska hadashay laakiin haddii aad heat fellow oo kasoo bilowdo horta heat ma socdaa thermodynamic kelmad ahaan inaad u fariisiso horta kelmadda inaad fariisiso oo ah thermodynamic experiment yaa ku fariisin kartaaba kelmaddaas heatkaas inuu fellow sameynayo oo branchigan uu qaabilsan yahay ama qaybtaas uu ka hadlayo waxyaalaha u baahan tahay kuwana ka mid waana yaraysan kartaa sida aan sheegay haddii aad experimentiga hadda aan sheegin oo kale waxaa u baahan tahay shaaha kulul ama shaaha u baahan tahay oo kulul iyo waxaa u baahan tahay bakeeri biyo u baahan tahay iyo weel weyn oo biyo ku jiraan weel xoogaa roon oo biyo ku jiro maxaa sameynaya bakeeriga shaaha ku shub halahaas maxaa material iskiyaa joogta soo ma haye materialka maxaa ku xigay waxaa ku xigay procedure-kii marka adaa samayn kara experimentiga procedure-ka oo kale procedure-ka adaa samayn kara maalan haddii aad dhahdid bakeeriga soo qaado kadibna shaaha soo qaado bakeeriga ku shub oo kulul kadibna dhexgeli inta amradaas aad bixinaysid waa procedure-kii waa marka dhexgeli bakeeriga kadibna fartaada what did you observe maxaa aragtay observation-kii aa weydiinaysaa observation maxaa marka wixii uu arkay maxaa dareentay maxaa aragtay intaas markaa weydiinaysid maxaa observation-kii ardayga oo aad sameynaysaa kadibna waxaa ku gabagabeynaya marka in oo markaasi intaas markaa dhahdo kadibna waxaa kusoo gabagabeynay okay wixii uu arkay uu sheegaa kuleylka intuu ka yimid haye marka ma diidan tahay in kuleylka uu ka soo baxay bakeeriga uu ka soo baxay biyahana uu soo gudbay kadibna fartaada uu soo gudbay okay soo biyo kuleylkii ma dhaqaaqin oo marka soo filo ma sameyn
ha falow sameeya saa ku dhahay marka okay thermodynamic marka branjigan oo ah thermodynamic inay socon karaan heatkaas waa asagana ka hadlaa so ma cadda hadda inay heatka dhaqaaqay ha okay waa isla fadhiyaan marka okay thermodynamic man saasa ku qeexi kartaa marka thermodynamic markaas qeexitaanka dhab ku dhexi kartaa marka shay kartaa tan waa procedure-kii halkan procedure-ka lagu soo bandhigaa sida hore u sheegnaba kadibna observation-ka ku xigo procedure-ka markay awoodid in observation-ka ku dul weydiisid sida ugu fiican saas kadibna conclusion-kii maxaad aragtay wixii aad weydiinaysay oo ku soo bandhigaa marka ardaygii waxaasan arkay markuu dhahayo ka marka observation markuu soo bandhigo wixii uu sheego waxay noqonay conclusion-kii waa gabagabadii wixii la arkay markaas oo experiment-kii la sameeyay waxa ku xigo kale oo muhiim ah in la sameeyo assessment in la sameeyo assessment-ga waa meesha ugu muhiimsan oo hawshii aad qabatay dhan oo aad qiimeynaayo la mid tahay casharkan maanta energy ku bixisay مثلا aad ugu dadaashay energy ku bixisay xalay diyaarisay ama habeenkii oo dhan aad diyaarinaysay juhdi soo gelisay videoisa u raadisay marka qaarkood dad kala la kaashatay aadi macallimiina la kaashatay waxa laga yaabaa in juhdi badan aad gelisay waxyaalo fara badan kala aad samaysay experimentiyo aad diyaarisay waa intii oo dhan marka dadaal aad samaysay wixii dadaal aad sameeysay ma gudbeen inay gudbeen marka maxaan ku yiraahdaa inaysan gudbin meesha aad ku ogaanayso inay gudbeen marka meesha aad isu qiimeynayso adiga isu qiimeenayo sidoo kale ardayga ku qiimeenay midkoodkana waa ku qiimeenay midkoodka aad martay naftirkiisa ku qiimeenay waa meesha aad ardayga marka meesha aad ka dhaqaajin lahayd hadhow meesha aad ku ogaanayso meelaha uu ka liita ogaan kartaa marka qaabka isticmaalka observation inta ay ku dhex jiraan experimentiga doodaha intaas oo dhan observation isticmaal indhayn isticmaal record garee arday exercise xasharada marka ay dhamaadaan exercise-yada ka tagin exercise waa muhiim sicitaankooda inaad saxdo kale exercise ka qaadato saxdo muhiim waa in la saxo exercise-kii maxaan ku yiraahdaa muhiim waa kadibna chapter review questions aa jiro su'aalo cashar kasto su'aalo waxa jiro chapterka ku xirmayana jirto oo marka markay chapterka u dhamaado kale su'aalo chapterka dhamaadkiisa ku qoran jirto su'aalaha soo qaad weydii arday weli wixii ka quseeya casharkan oo related la yahay weydii ardayga weydii insha Allah marka okay tusaale kale aan soo qaadano mesela cashar kale aan tusaale soo qaadano tusaale kale waxaan soo qaadan karnaa exothermic iyo endothermic reaction-ka exothermic reaction iyo endothermic reaction marka dhigaysid marka haddii aad dhahdo exothermic reaction waa reaction heat soo saara endothermic reaction-ka waxay noqonay oo kaliya laakiin qaab ka duwan in loo dhigo ardayda laga qayb geliyo markaas adig kaliya sheegay ardaygana uu ku dhageystay oo kaliya marka just asaga dhinaciisa markay wax ka imaadaan oo kula hawsha kula wado fahamkana uu fiicnaana marka asaga udub dhexaad u ahaado ka qayb geli waxyaalo uu yaqaan oo kala ka soo bilaab kadib meesha uga qabo tusaale kan hadda markay casharka la sheego objectives-kii ama waxa aad xaqiijinaysaa ku xigo oo ah casharka markuu dhamaado kadib waxa la rabaa in ardaygu uu kala bixin karo reaction-kan waa exothermic waa endothermic inuu dhihi karo waxa lagu bixin in qaab ay u qormaana jirto exothermic qaab ay endothermic u qormaana jirto reaction kasto qoran hadii qaabka uu aad fiiriso kaliya inuu ardayga sheegi karo dhihi karo reaction-kan waa exothermic because qaabkan uu qoray format-ka waxa jirto laba qaab waana exothermic oo kale laba qaab oo loo qori kara jirto exothermics-ka loo qoro endothermic ayagana laba qaab oo loo qoraa jirto marna kan oo kale delta H mar la isticmaala jirto oo delta H negative tiro hadii la siiyo kale waa iyada ama sidoo kale waxa la isticmaalaa A+B oo kale markii la dhaho exothermic haduu yahay waxa soo baxaya leeyahay AB plus energy oo kale marka plus energy hadii oo lagu daro maxaan ku yiraahdaa dhinaca product-ga marka qaabkan waa exothermic soo sameeyay endothermic-gana waxa lagu fahmaa isagana delta H tiisa positive ah delta H inay noqoto ama delta H delta H kiisa in positive ay noqoto waa lagu fahmaa ama waxa kale lagu fahmi karaa ma taqaanaa ninka
qaabka loo qoro oo ama inay noqoto a plus b plus energy oo ay soo baxdo a b haddii marka energy-ga uu dhinaca productiga reactantiga uu ku jirana maxaa la dhahaa markaas endothermic qaabka labadan qaab waa loo qoraa haddii marka reaction uu qoran yahay maalan oo laakiin caadi uu qoran yahay a plus b maalan a plus b a b oo kala qoran maalan laakiin delta h kiisa lagu siiyo waa positive maalan ama kana sidoo kale delta h kiisa negative a plus b equal to a b laakiin delta h kiisa negative ee markaas ka soo marka ardayga inuu kala bixin karo si fiican oo taqaanaan laakiin waxaan ula jeedaa oo keliya xusuusina ula jeedaa I'm sure inaad maadada taqaanaan okay divine exothermic iyo endothermic reactions inuu qeexi karo exothermic maxaa la yidhahdaa endothermic maxaa la yidhahdaa tusaalooyin ka bixin karo tusaalooyin inuu ka bixin karo casharkan saasaa laga rabaa markuu dhammaado kadib ardayga methodka raacisid experimentation aa isticmaali kartaa sida hadda buuggan uu experiment ahaan uu soo bandhigi rabaa discussion aa isticmaali kartaa inaad niqaashtaan oo ardayda wax weydiiso oo reactionada inay qoraan qaabka loo qoro noocyo kale oo reaction ay soo qaateen aad jirto inaad ku dhex lifaaqo iyo presentation macnaa markii la qaybinayo reactionka mar oo redox non redox la dhahaa jirto markaas electrona base laga dhigtay ogtay markii wax la qaybinayo according to aa jirto markasta wax loo eegaya jirto wax shay kasta oo la qaybinayo waxbaa loo eegaa according to reactionka marna waxaa loo fiirinayay maxaan ku yidhaahdaa electronka markii loo fiiriyo non redox redoxaa loo qaybinaya marka hadda laakiin waxaa la fiirinaya waxay tahay energy aa la fiirinaya energy mar oo spontaneous non spontaneous markaas waxaa la fiirinaa reactionkan ma u baahan yahay help ma u baahan yahay wax ka banaanka ah tan in la kululeeyo kale ama reagent lagu daro macnaa marno asaga keligiis ma u dhacaa mise wuxuu u baahan yahay iskiis ma u dhacaa oo reactionka isaga keligiis ma iska dhacaa mise wuxuu u baahan yahay in la sameeyo reactionada saas mar loo qaybiyo jirto okay experimentiga marka casharkaas oo ahdaaftaas leh oo methodkaas la maraayo experimentiga in lagu bilaabo marka experimentiga aan ku bilaaba ilaa casharka haddii toos loo galo waxay noqonaysaa waxaana waa sidaas warkana waa xiran yahay in la dhaho laakiin hadda waxaa waaye ardaygii in la siiyo identifying whether reaction is exothermic horta exothermic ma taqaanid reactionka laakiin reaction aad taqaanaa maaho reactionka see ku ogaanaysaa exo inuu yahay indo inuu yahay exothermic inuu yahay iyo endothermic inuu yahay see ku ogaanaya in meesha laga soo bilaabo okay si aan u ogaano waxaan u baahannahay marka agabkaan u baahannahay agab la heli kara thermometerka waa la heli karaa calcium chloride iyo baking soda okay in qalabkan la helo si sahlanna waxaa iska isticmaali kartaa oomo iyo biyo haddaa isticmaashid xitaa exothermic inuu yahay endothermic inuu yahay waa fahmi kartaa oomada gacanta ku shub macnaa experimentiga hadduu kugu adkaado ama aad dareento inuu experimentigan agabkiisa aadan heli karin materialskiisa aadan heli karin waxaad heli kartaa iska isticmaali kartaa مثلا reaction aad rabtaa exothermic endothermic inaad soo bandhigtaa rabtaa exothermic miyaa reaction ka mise endothermic okay oomada caadiga ah soo qaado kadibna biyo soo qaado gacantaada ku shub oomada materialska u baahan tahay maxaa waaye experimentiga adaa la qori kara experimenting maxaa leedahay marka waxaan rabaa in identifying whether reaction is exothermic or endothermic aan dhahday reaction kan exothermic miyaa mise endothermic waaye aan rabaa inaan sheego soo adoon su'aal marka waxa sameynaysaa oo kaliya materials ka u baahana materials hay biyo water iyo detergents oo oomada oo kale aan ka soo qaadan karno detergents oo oomo ka soo qaadan karno iyo labadaas ugu muhiimsan u baahan tahay bis biyahaas okay waa materials ka sheegtay procedure ku xiga Soomaa procedure-ka marka maxaa waa procedure-ka wixii la mari lahaa ama steps-kii ardayga dhehe oomada soo qaado gacantaada ku shub wax yar oo biyo ah ku dar maxaa dareentay intaas markii aad dheysay amarka aad amreysay waxay noqonaysaa procedure-kii
maxaa dareentay markaa leedahay observationkii waaba hadaad samayn karaba waa qoran kartaa xitaa observation waxaa leedahay observationka maxaa what did you feel maxaa dareentay ardayga isaga wuxuu ku leeyahay waxaasaan dareemay okay in markaasi markii aad gacantaada ku shubto oomada maxaa dareentay heat kuleylaa soo baxay kuleyl soo bixin haa reactionka markuu dhacay heat uu soo baxay sidaas daraadeed waa exothermic reaction marka reaction kasta oo maxaan ku yiraahdaa heat soo saara ayaa waxaa loo yaqaanaa exothermic loo yaqaanaa kan markii aad isu darto qabow ka imaadana waxaa loo yaqaanaa endothermic reaction haddii qalabka marka uu culays kugu noqdo kale oomadaas iska isticmaali kartaa just waa ku bedelan kartaa laakiin inaad experimentigo dhan iska dhaafto waa laga qurux badan yahay ha samayn experimentiga aad muhiim u yahay waa meesha chemistryga dhadhanka u yeelan waa chemistry inuu chemistry noqdo haddii la rabo waa in experimentiga aadan ka tagin haddaad laakiin experimentiga aad ka tagto waxay noqonaysaa just ardayga naftirkiisii waxaad adiba samayn karin uu kaa aaminsan yahay marka laakiin haddii aad oomadaas aad ku tusto this is exothermic gacantaada maxaa ka dareenta kuleyl reactionkan kuleyl ma soo saarin haa this kuleyl waxaa muujinaya reactionka inuu yahay exothermic sababtoo ah kuleyl uu soo saaray reaction kasta oo dhacay ama laba shay haddaa isku darto kuleyl haddii aad ka dareentaba waxaa loo yaqaanaa exothermic loo yaqaanaa intaas sidaa dhihi karta okay procedureka waa kaas marka wixii aad u baahanayd oo dhan ama tallaabooyinka aad mari lahayd iyo waxa uu ardayga arko oo uu kuu sheegay marka taasay noqonay marka procedure inuu inta ku shubo kadibna temperature-kii kor u kacay baking soda waa la heli karaa baking soda oo kale biyo ku dar markaad ku darto kadib bakiintii midaan biyo ku dar kadibna kor u soo kacay haddii aad geliso marka maxaan ku yiraahdaa thermometer-kaas hadaad geliso thermometer-ka kor u kaca temperature of thermometer kor hadduu u kaco micnaheed maxaa marka in marka temperature-ka uu kor u kacay waa micnaheed okay taasaasay noqonaysaa observationkii waa marka wixii la arkaayo marka waxaa fiican stepka markaad bixiso in observationka aad ka dabageyso stepka markaad sheegto in observationka aad ardayga waxa uu la kulmaayo inaad weydiiso haddii uu adkaadana sida aan kuu sheegay kadibna haye waxaad aragtay inaad soo hooriso marka waa haye markii oomada lagu shubo oo kale soo kuleyl ma dareemi kuleylkaas aad dareentay ayaa wuxuu okay taa waxay caddaynaysaa in saasoo kale aad dhihi karto taa waxay caddaynaysaa kuleylaa ka dareentay kuleylkaas aad dareentay reaction kasta oo sida hadda aan sheegayna inaad saas u soo hooriso oo aad qaab noocaas oo kale casharka loo bandhigo waa qaabka ugu qorxoon ee la dalbanayo waaye assessment inaad sidaan hore u sheegnayba cashar kasto assessment ku sameeyo markaad casharka u dhammaado waxaa jirto inaad si aad assessment u samayso exercise kugu caawinaya buuggu qoran yihiin aad jirto haddii xataa samayso sidoo kale chapter review question hisaa jiraan oo badan oo chapterka gadaashiisa soo qaado weydii ardayda questioniska waa isha kaliya aad ku ogaan kartid ardaygan in wixii aad u sharaxaysay aad u fahmay in kale waxa asaga sameeyay badan haddana isagoo sameeyay haddana su'aalo inaad weydiiso tooliska ugu badan aad isticmaalaysid ha noqdaan maxaan ku yiraahdaa su'aalaha noqdaan su'aalo weydii markasta weydii su'aalaha ku celceli su'aalaha badi oral questioniska aad u badi quizzes testiska aad u badi marka inaad markasta su'aalahaas oo kale ardayda weydiiso maadaama ay sameynayaan group ay yihiin indhaha aad u adeegso ardayda indhaha ku hay waxa ay sameynayaan markasta la shaqay caabi isla markaasna record garay ardayda waxa ay sameynayaan waa muhiim inaad record garayso kuna abaaliso macallimiin aad u mahadsantihiin xalqadeennana halkaan aan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo xalqad dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtiga ka faa'iidaysa